tengo, el brillo, dinero. Tú sabes que lo tengo, está caliente. En la calle con mi gente estoy candente. En la noche yo no duermo, dale prende, prende. Yo soy la patrona, la presidenta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxay ku soo kortay guri inta badan aan maalintii biyo laga helin. Sidoo kale waxay yaraanteeda la shaqayn jirtay koox qabriyada qoda oo dhankeeda ay xabaasha ka qodi jirtay. Waxayna halkii qabri qodidiisa ku qaadan jirtay $1. Lacagtaas oo reerkeeda ku caawin jirtay. Waa haweeney hurdo yar, waayo hadda waa agaasimada guud ee shirkadda Pepsi ee aad wada garanaysaan. Waqti badan ayay shaqaysaa. Waa qof madaasho ah oo aan laga waayin goobaha shaqada. Haddaba haweeneydani hadda agaasimaha ka ah shirkadda Pepsi waxay 28 bishii Oktoobar sanadkii 1955 ku dhalatay dalkeeda Hindiya, gaar ahaan magaalada Madras. Qoyskeeda waa reer ku dheggan dhaqanka. Aabaheed wuxuu ahaa shaqaale ka howlgala mid ka mid ah bangiyada dalka Hindiya. Maadaama qoyskeeda ahaayeen dad ku dheggan dhaqanka, ku dhegganaantaasi waxay keentay in ay gabdhaha reerka u diidaan in ay wax bartaan oo ay tagaan goobaha waxbarashada. Sidoo kale waxay qoyskeeda diidayaan gabar shaqaynaysa. Iyadoo xaaladani qoyska ku sugan yahay ayuu aabaha reerka ka hor yimid dhaqankii qoysweynaha, wuxuuna go'aansaday inuu gabartiisa wax baro, iskuulkana geeyo. Indara ayaa ka mid noqotay ardayda dalka, waxayna ku soo baxday gabar ku wanaagsan waxbarashada. Ayada ayaa fasalka kaalinta koowaad ka geli jirtay. Dhanka kale waxay ahayd gabar rabsho badan oo la dirirta ciyaalka iskuulka iyo kuwa xaafadda. Markii Indara soo dhamaysay waxbarashadii dugsiga sare, waxay ku biirtay jaamacadda Kiristaanka ee magaalada Madras. Gaar ahaan waxay ka mid noqotay ardayda kulliyadda sayniska. 4 sano ayay dhiganaysay jaamacadda. Waxay ahayd inta ay wax ka baranaysay jaamacadda ardayad ka dhex muuqata jaamacadda oo mar kastana gasha kaalinta koowaad. 4 sano kadib ayay jaamacadda Madras ee Kiristaanka ka qaadatay shahaadada baajka ee sayniska. Maadaama ay ahayd qof dadaal badan oo mar walba geli jirtay kaalinta koowaad, waxay dadaalkeeda ku heshay deeq waxbarasho oo mar kale ayay jaamacad kale ku biirtay. Waxayna jaamacaddani dambe ka baratay cilmiga ay maanta ku shaqaysato ee maamulka iyo maareynta ganacsiga. Haddaba markii ay ka qalin jibisay jaamacaddani dambe oo ay gacanta ku dhigtay shahaado labaad oo baaj ah oo dhanka maamulka iyo maareynta ganacsiga ah, ayay sharikad dharka ka ganacsata shaqo ka heshay. Laakiin shaqadeeda waxaa ka hor yimid caqabadii dhaqanka ee diidanayd shaqada haweenka. Laakiin Indara ayaa iyaduna diiday in ay u hoggaansanto dhaqanka reerka. Waxayna dooratay shaqadeeda. Waxaan laga dhigay madax suuqgeynta ee shirkadda. Gaar ahaan waxaa lagu dhahay, waxaad noo suuqgeynaysaa dharka hoose ee nadaafadda dumarka. Haddaba Indara markii ay shaqo gashay, waxaa ka hor yimid caqabad weyn oo tii reerkeeda ka sii weyn, taas oo ah in ay dowladda Hindiya diiday in tiifiyada iyo boorarka waaweyn lagu xayeysiiyo dharka hoose ee nadaafadda dumarka. Indara waa madax suuqgeynta shirkadda dharka, wuxuuna qaanuunkii dalka u diiday in ay adeegsato waddadii ay wax ku soo bandhigi lahayd oo ay badeecada shirkadda ku iibgeyn lahayd. Si ay caqabadani ugu baxdo oo ay u shaqaysato, waxay Indara ku qasbanaatay in ay dharka hoose ee nadaafadda dumarka geyso goobaha waxbarashada sida jaamacadaha, kuleejooyinka, iskuullada iyo guryaha. Dabcan Indara waa ku guulaysatay qorshaheeda, waxayna shirkadda u soo hoyisay guulo waaweyn oo dhar badan ayay xayeysiin la'aan awooday Indara in ay dumarka Hindiya ka iibiso. Intaa wixii ka dambeeyay, Indara waxay dareentay in ay leedahay mawhibo wanaagsan oo dhanka ganacsiga ah. Sidaas darteed waxaa u soo baxday in ay sii joogin dalkeeda Hindiya, oo waxay go'aan buuxa ku gaartay inay u safarto dalka Mareykanka isla markaana dhammaystirato waxbarashadeeda. Laakiin waxaa go'aankeedii ka hor yimid hooyadeed, taa oo ku dhahday gabadheeda Indara, suuragal ma ahan in aad adigu kaligaa safarto oo aad tagto dal ajnabi ah oo ay cidna kaaga horreynin. Hooyada dhashay Indara waxay rabtay
in ay gabadheeda la joogto isla markaana guursato kana shaqaysato shirkadaha ka howlgala gudaha dalka Hindiya. laakiin Indira way khilaaftay rabitaanka hooyadeed waxayna u safartay dalka Mareykanka ayadoo kaligeed ah. waxayna ku biirtay oo ardayad ka noqotay mid ka mid ah jaamacadaha dalka Mareykanka. waxayna jaamacadaasi ka qaadatay shahaado master ah oo dhanka maamulka iyo maareynta ganacsiga ah. markii Indira gacanta ku dhigtay shahaado master ah, waxay hore u gashay suuqa oo waxay shaqo ka heshay mid ka mid ah shirkadaha soo saara gaadiidka ee dalka Mareykanka. waxayna la soo baxday mawhibadeeda iyo kartideeda. waxayna shaqada ka bilowday meel hoose, jaga ay u sii dhiibtay ilaa kolkii dambe ay gaartay jagada ku-xigeenka maamulaha guud ee shirkadda. intaan oo guul ah marka ay xaqiijinayso Indira weli ma gaarin da'da 30 sano jir. waa gabar firfircoon isla markaana jecel in ay ka faa'iideysato waqtigeeda iyo mawhibadeeda. haddaba Indira ayaa gudaha shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka caan ka noqotay, waxayna shirkad waliba jeclaatay in ay Indira madax ka dhigato oo suuqa la wareegto. laakiin Indira ayaa markii dambe shirkadahaasi ka dooratay shirkadda sharaabka iyo cuntada ee Pepsi. waxayna shirkaddaani ka noqotay maamulaha guud. kolkii Indira ku soo biirtay isla markaana madax ka noqotay shirkaddaani Pepsi, waxay bilowday in ay dardar geliso howlaha shirkadda isla markaana hormariso. Indira ayaa 24 saac 4 saac oo kaliya ka seexan jirtay, waxayna 20 saac ee kale ee soo haray ka shaqayn jirtay horumarinta shirkadda. markii ay guursatay, waxay Indira isku dayday in ay isku dheelitirto shaqada guriga iyo midda shirkadda, laakiin waxay ku fashilantay qorshaheeda isku dheelitirka. mar ay ka hadashay waxa kala qabsaday ayada iyo carruurteeda, waxay dhahday, mar kasta oo aan soo fariisto xafiiska, carruurteeda waxay iga soo daba diraan fariimo, marmarka qaarna si toos ah ayay ii soo wacaan. waxayna iga codsadaan in aan in badan waqti la qaato oo aan u sheekeeyo. marka aan tago guriga, waxaan dareemaa carruurteyda in ay baahi weyn ii qabaan. inkastoo Indira dhibaato ka haysato dhanka carruurteeda oo ay ku adag tahay isku wadidda maamulka shirkadda iyo daryeelidda ciyaalkeeda, haddana waxay awooday inay samayso guulo mug leh oo la arki karo. waxay Indira shirkadda ay madaxda ka tahay ee Pepsi u suuro gelisay inay suuqa ku soo laabato isla markaana tartan adag la gasho shirkadaha kale kadibna ka saarto suuqa. sidoo kale waxay Indira kor u qaaday faa'iidada soo gasha shirkadda, taa oo ahaan jirtay $2 bilyan. laakiin markii Indira la timid dadaal, karti iyo maamul wanaag, waxaa shirkadda Pepsi u suuro gashay in ay faa'iidadeeda gaarto $6 bilyan. maadaama ay Indira shirkadda gaarsiisay guulo waaweyn, waxay milkiilayaasha isla garteen in muddaxileedka Indira la gaarsiiyo ilaa 12 sano. dhanka kale, waxaa gabadhaani sanadkii 2008 lagu daray liiska shakhsiyaadka dunida ugu saamaynta badan. inkastoo Indira tahay qof shaqaale ah, haddana waxay shaqaalnimada ku tacabtay lacag lagu qiyaasay $300 milyan. waa hubaa haddii ay abuuran lahayd shirkad ayadu ay leedahay, waxay maanta ka mid noqon lahayd shakhsiyaadka dunidani ugu hodansan. laakiin waxay qaaday waddadii Hindida dhaqanka u ahayd ee shaqaalnimada. gabagabadii, shakhsiyaadka guulaysta waxay raadiyaan fursadaha suuro gelinaya in ay guul gaaraan, halka dadka faashiliinta sugaan in ay ayagu fursadda u timaado.